soddon iyo dhowr sano wixii laga shaqaynayay ee abaabulka ahaa ee beenbeenta ahaa ee la dhahayay goonigoosad baan rabnaa waa Soomaaliyaan ka go'aynaa waan ka xoroobaynaa wixii baa saaka meesha ka baxay sidaa darteed ra'iisul wasaare waxaan kaa codsanay anoo afka beelaha kuumada ku hadlaay meesha aqoonsi buuxa sii saaka waxaa intaa ii wehelisaa marar badan baan ka hadlay arrinta Khaatumo waxaan rabaa Khaatumo ninkii u haysta meel cidlaa iyagoo iskuba filan oo aan aqaano dadnimo iyo tiro iyo tayo iyo ismaqalba iyagoo isku filan haddana annaga wax khaas nagu jira dhaaraan hadallaan maqmaqlahay nimanka isa soo cadaynay nimanka waan isa soo bixinayna waan isa soo cadaynayna si cad oo dadnimo laan u garab istaagayna horeyna waan u sheegnay waan ku celinayna meeshaan ninkii dambe oo xabad ku rido ninku dooni baa ahaadee waan is arkayna magacaygu waa Waas Cabdiraxmaan Waas Khaliif waaska beelaha kuumade ma sha Allah saaka aniga iyo isimadan kale goonyahayga fadhiya waxaan meeshan u soo fadhiisanay in aan dirno fariin hambalyo ah oo aan u hambalyeyno farxadda iyo guusha weyn ee mar labaad ay gaadhay SSC Khaatumo dadkaas muddo badan bay dhib qabeen hadda waan ogeyno 23 wixii ka dhacay meeshaas ilaa alaana mana jira oo galdarri iyo dulan ah waan ognahay ilaahay idamkii meeshii ay u socdeen ay u dagaalamayeen insha Allah ilaahay idamkii saakay joogaan marka waxaan leenahay gabdhaheeda wiilasheeda salaadiinteeda garaadadeeda dhammaan siyaasiyiinteeda madaxweynaheeda waxaan idan leenahay hambalyo haddana hambalyo mar saddexaad hambalyo sidoo kale waxaan ammaan iyo bogaadin caalami ah u soo jeedinayaa go'aanka geesinimada leh ee dadnimada leh ee uu qaatay ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare guulayso horay u soc waa tallaabo habboon xilligeedina ku soo hagaagtay aad iyo aad baan arrintaa kuugu hambalyeynaynaa oo uguna faraxsanna hal kalena waa taladaydo waan kuugu dari ra'iisul wasaare carabkaaga iyo codkaaga iyo qalinkaaga baa Allaha barakeeyo Soomaaliya kii samata bixin lahaa ee taariikhdu qori lahayd noqo saaka waxaad ka hortagtay adiga iyo madaxweynahaaga iyo dawladaaduba ficil weyn oo guracan oo meesha ka soo jiijiilaha maalmahan midiyaha waxa ku jiray waan maqlayno waan arkayn aad iyo aad waxaa saaka meesha ka baxay soddon iyo dhowr sano wixii laga shaqaynayay ee abaabulka ahaa ee beenbeenta ahaa ee la dhahayay goonigoosad baan rabnaa waa Soomaaliyaan ka go'aynaa waan ka xoroobaynaa wixii baa saaka meesha ka baxay sidaa darteed ra'iisul wasaare waxaan kaa codsanay anoo afka beelaha kuumada ku hadlaay meesha aqoonsi buuxa sii saaka aqoonsi buuxa kaga soo tag ayaga oo sida ay ku soo dhaweeyeen u faraxsan yihiin u faraxsan oo mashaariic badan iyo manfac badan aad u geysay
nimankaa ka soo noqo ilaahay idin hortaa jagada aad joogto rag badanoo daarood ismaaciilaa soo maray qaar baa madaxweyneyaal aha 2 madaxweyne allaha u naxariistee madaxweynihii cabdullaahi yuusuf ahaa iyo madaxweyne farmaajo hadda jooga farmaajo 2 waqti buu ahaa marna ra'iisul wasaaruhu ahaa marna madaxweynuhu ahaa cabdiweli gaas cumar cabdirashiid cabdiweli xiirane saacid raggaasoo dhan meesha way soo mareen way ku dhici waayeen markaan leeyahay go'aanka geesinimadeed qaadatay kuwaasoo dhan khatartii ay ka cabsadeen baad u badheedhay geesi dhalay baa tahay marka